runtii maanta maadaama aan joogno shirkii dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed anoo ka faa'iideysanaysan fursadaas dhalinyarada Hirshabeelle iyo dhalinyarada Galmudug baaqna u dirayno dagaalada ka soo cusboonaaday labadaas maamul deegaano kamid ah oo ah xuduudka Galgaduud iyo Hiiraan dagaalo u dhaxeeya laba beelood oo runtii dagaal xun ahay oo dad badan ay ku dhamaadeen runtii dagaal waxba ma keenayo wiil baa ku dhinto wiil kuma dhasho waxaana waa wax mar walba soo noqday maalintan dhalanayay ilaa hadda waa maqlaayay meesha inuu dagaaladeeda iska jiraan runtii markii hore way ka duwan tahay sida hadda muuqato qaabka dagaalada u dhaceen siyaasada ayaa ku dhex jiro sidaan dareemayno annagoo ah dhalinyaradii labadaas maamul runtii waxaan aan baaq jeedino waa laga gudbay xilligii qabiil la isku dagaalayay maanta qabiil waa laga gudbay Soomaali qabiil waa ka tagtay qabiil ka adkaaday ama qabiil maanta aan u awood sheegtay wili 30 sano Soomaaliya ma ka dhicin marka waa isku daalayeen kulay tabo dhibaatadaasna waxay dan ugu jirin dadka annaga aan ka mid nahay oo deegaanadaas ka soo jeedo oo dhibaatada aad ku saameynayso runtii waxaan leenahay hal joojiyo shuruud la'aan labada maamulna waxaan ka codsanaynaa iyo dawladda federaalka waliba gaana dawladda federaalka ciidamada militariga way joogaan labada gobolba way joogaan waa inay meeshaas tagaan runta marka laga hadlo nabadda dawladda inay ayada dhaliso waaye inay aad u adkayso waaye militariga dawladda maxaas joogo militariga dawladda Gurceel joogo runtii waa inay imaadaan ay meeshaas ay tagaan ay goobta tagaan ay dadka kala badbaadiyaan way soo noqotay haddana xilliga ugu xumeeday maraysaa marka mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad waxaan baaq aan u jeedinaynaa walaalaha meesha ku dagaalamayo oo runtii cid ka naxaysan aysan jirin ee dagaalka shuruud la'aan joojiyaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun oo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ka tacsiyeenaynaa geerida dadka walaalaha oo wada degan gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ku timid inay saacadan iyadoo qarnigii 12aad lagu jiro wali colaad sukeeye oo walaalnimo la isku leynayo oo aan la garanayn qofka walaalka oo dhinta wuxuu ku dhintay kan dilana uu sagaranayn wuxuu ku dilay waxaan si gaar ah aan uga codsanaynaa maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle oo mataankii Galmudug Hirshabeelle ay tahay dad walaalaha ay yihiin in si xoog leh oo mug leh shaqadaas looga qabto waxaan ka tacsiyeenaynaa dadka geeridaas naxdinta leh ku timid oo walaalaha oo dhibka ayaga isgaarsiiyay annagoo hadda aan wada joogno Muqdisho dhalinyaradii Hirshabeelle iyo Galmudug iyo dhalinyarada Soomaaliyeedba ayaan baaq nabadeed diraynaa baaqaas waxaan rabnaa in loo dhaganuglaado in dadku ay fahmaan walaalnimada in dhiigga walaalka waxba aan lagu gaareen in cid ku macaashaysa aysan jirin inaan ka tacsiyeeno si gaarana labada maamul ay gacan weyn ka qaataan iyo dawladda dhexe federaalka waxaan si gooniya iyadana aan uga mahadcelinayaa xildhibaanadii ka hadlay oo federaalka ka soo jeeda labada dhinac waxaan rajaynayaa iyaguna dhinacooda inay kaalin ka qaataan oo labada dhinac iyagoo midaysan in barnaamijka dhex galaan ugaasiyada iyo samadoonnada iyo waxgaradka haddaan dhalinyaro nahay waxaan diyaar u nahay markaan xamar ka laabanno hadday noo suurto gasho inaan ka qayb qaadanno tagno dadka walaalka dhex istaagno ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogtana waxaan guud ahaan leeyahay colaadda sukeey waxay taraysan ma leh magacaygu waa Maxamuud Xaamud Badle anagoo dhalinyaro Soomaaliyeed waxaanu halkan ka diraynaa baaq nabadeed waxaana u diraynaa dadka Soomaaliyeed reeraha Soomaaliyeed ee ku dagaalamaya gobolka Galgaduud iyo gobolka Hiiraan xuduudda u dhaxaysa dadka Soomaaliyeed waxaanu kula talinaynaa in ay nabadda qaataan oo ay isku soo dhawaadaan iyadoo oo ma taqaana aanu ka baqaadanayno macnihii nabad baa naas la nuuga leh markaynu dhanka kale eegno xagga diinta Nabi Cali salaam wuxuu yiri al-qaatil wal maqtuul fi an-nar labadii qole ee islaamka ee istila waxa weeye labada dhinac wixii ka dhintaba waxa weeye waa ahlu naar sababtu waxay tahay qolada Nabi Cali salaam la weydiiyay waxa la yiri haddii ninkii macnaha wax dilay ninkii wax dilay hadduu macnahiisa u dambiga leeyahay kii la dilay maxaa dhacay Nabi Cali salaam wuxuu jawaabay kii la dilayna wuxuu rabay kan kale inuu dilo intaanu dilin marka dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay intay naad ku hooban lahaayeen inay ka joogaan oo dadkaas waxa weeye nabadda maaragtay loogu baaqo maamaha Soomaaliyeedna waxay tiraahdaa waxa weeye dagaal wiil kuma dhashay wiil ma ku dhinta dad baa inaga dhimanaya dadka kama maarno waxa weeye wadada toosan inay matqaan dadku qaataan baaqa nabadeed ayaan diraynaa annagu dad Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed waxaanuna leenahay intii inay geeriyootay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inta dhaawacana insha Allah ta'ala caafimaad ayaan rajaynaa magacaygu waa Ubax Maxamed Nuur waxaan ka tirsanahay dhalinyarada Galmudug waxaan halkaan baaq nabadeed ugu dirayaa walaalaheena ku dagaalamayo Galmudug iyo Hirshabeelle kuwaas oo
deegaan ka dhexeeyo derisnimo ka dhexeyso iyo walaaltinimo waxaan leeyahay walaalahayow nabad baa naas la nuuga leh colaad intaasoo sano 27 sano ku soo jirnay anigaan hadda ay jeedin nabad ma arkin xabadoo socotaa dhashay ilaa hadda waa dhex taaganahay waxaan kaloo baaq u dirayaa madaxweynaha dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo inuu ciidamo dhex geeyo walaalaheena dagaalamaayo dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho marka waxaan leeyahay walaalayaal oo hana laga daayo dhibka heshiiya wixii idinka dhaxeeyana waxaan jeclahay inaan ku dhameysatiin wada hadal iyo xasilooni iyo miiska nabadda intaasaa ugu baaqayaa wabilaahi tawfiiq magacaygu waa axmed maxamed cumar caruuse waxaan ahay gudoomiyaha dalladda dhallinyarada galmudug ee gayaan waxaan rabaa ka soo qayb galnay maanta oo ah 26-ka bisha 12/2018 shirweynihii dhallinyarada Soomaaliyeed ee lagu qabtay magaalada Muqdisho intaas ka sokow waxaa dhacay dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo ka soo kala jeeda Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa maartay ii sheeg dhibaato ku dhex martay inta u dhaxaysa Maxaas iyo Gurceel arrintaas waxaan rabnaa inaan baaq nabadeed u jeedino annagoo matalayna labadii dhalinyaro ee ka soo kala jeeday Hirshabeelle iyo Galmudug arrintaasuna runtii si gaar ah noo taabanaysa maadaama ay yihiin waxa dhibaatada sida gaarka u gaarayso dhalinyaro aadan uga xunnahay runtii in maanta oo xilligan la joogo in dhalinyaro Soomaaliyeed ay si macna darro ku dhintaan oo kuna dhaawacmaan waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkii dhintay ilaahay inuu maartay ii sheeg samir iyo iimaan ka siiyo dadka ay ka dhinteen ayagana ilaahay u naxariisto kuwa noolna ilaahay u bogadhayo oo ilaahay caafiyo intaas ka bacdi waxaan rabnaa inaan horta marka koowaad baaq u dirno dawladda Soomaaliya iyo maamulka Galmudug iyo Hirshabeelle mas'uuliyiinta kala duwan oo runtii ay si gaar ah u qosayso shacabka dhibaatada ay ka soo gaartay korkooda lagu dirirayo iyo dadka dhibaatada isku geysanaya intaba waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ugu baxaan ciidamada u diraan ayna kala dhex galaan dhibaatada dadkaas walaalaha kala gaartay oo ah runtii maanta xilliga ay ku soo beegantay iyo markasta inay sabab habboonayn dad Soomaaliyeed inay si macna darro u dhintaan baaq labaad waxaan rabnaa inaan u jeedino dadka uqaasha iyo waxgaradka iyo dadka ka soo jeeda beelaha dadka walaalaha meeshaas ku diriray inay xusuustaan in dagaal uu san wiil ku dhalan inuu ku dhinto maahan taasna aysan ahayn wax maartay maanta dadka Soomaaliyeed iyo labada shacabba u qalma maamulada ay uqaasha iyo ugaasiyada iyo waxgaradka waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas ka hortagaan baaqna ka soo jeediyaan meeshana ay gaaraan ka door ahaan annaguna waxaan rabnaa hadii ilaahay yiraahdo labada dhalinyarada Hirshabeelle iyo dhalinyarada Galmudug inaan meeshaas ku baxno doorka nooga aadan aan ka qaadano waxaan rajaynaynaa insha Allah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasri maartay ii sheeg inuu kala dhex dhigo heshiis dadka walaalaha dhibaatada kala gaartay markale waxaan ka xunnahay dhibaatada halkaas ka dhacday waana ma ka soo horjeednaa shucuurteena waxaan ku muujinaynaa maadaama ay yihiin dadka la isku adeegsanayo dhalinyaro inaan ka soo horjeedno oo ay yihiin waxa meesha dhibaatada ku gaarayso 100% ay yihiin dhalinyaro midka wax dilaya iyo kan la dilayo iyo midka barakacaya iyo dadka dhibaatada gaarayso inta badan dhalinyaro inay yihiin waa haween iyo carruur marka waxaan leenahay dadka sida gaarka colaadda soo horinaya dawladda federaalka iyo maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug la raayo inay tilaabo ka qaadaan sababtoo dadka shacabka iyo dhalinyarada ma ahan xaalad dabka lagu shito waa dad la soo koriyay waqti ku soo baxay dad populationkii iyo shacabkii maartay dalka ku xisaabtamaya kamid haddii qof siyaasi ama dhaqan ama dangooniyo kale uu inta maalin walba tago colaad horiyo dalka masaas ma anfacayso waxayna ka mid tahay mas'uuliyadda loo idmada maamulada iyo dawladda federaalka intaba arrinta waxaan rabnaa dadka sida gaarka ah hawshaas u horinaya in wax laga qabto tilaabo laga qaado ciidamada meesha la geeyo aadaan u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa doorkan inaan ka qaadan doono waana gaari doonaa meesha insha Allah hadii Ilaahay